raxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu. Jimco wanaagsan saaxiibayaal, soo dhowaada meel walbood joogtaan. ku soo dhowaada hal slide oo buuxa oo uga jawaabayo su-aal ka kooban 3 qaybood ee ku qoran page-ka 30aad buugga xisaabta galaaska 12aad layli cashirkiisa 4aad. su-aashu waxay u dhacaysaa verify that each equation is an identity. waxaad caddeydaa islaagyada soo socda inay isla egyihiin. alright, markaad qaybta ee ugu horeyda waxay leedahay sin square x of 2 waxay la mid tahay tan x minus sin x oo loo qaybshay 2 tan x. markaad isla mid ahaanshaha raadinaydo waxaad samayn kartaa dhinaca leftiga baad inta ka shaqeydaa dhinaca right soo saaraysa, ama dhinaca right baad inta ka shaqeydaad left soo saare, ama waxaad samayn kartaa intaad left iyo right ba waad isku wadi kartaa saad meel isku geyn kartaa. hadda leftigaan wadayaa, marka waxaan ognahay sin x of 2 amba sin half angle waxay ahaa jirtay plus or minus square root of 1 minus cos x loo qaybshay 2, laakiin markii square yimaado square root kuunbaa baxaya oo waxay ku noqon doontaa sidaan square root kuunbaa baxay sababtoo dhinacana square. kadib waxaan sameynayaa qaybtan midigta ah ayaan tan kor iyo hoos uga garaacayaa tan x. halkan haddaan tan x ku dhufto tan x bay noqonaysaa, kan wuxuu noqonayaa tan x cos x, 2dan waxay noqonaysaa 2 tan x. tan baan ku garaacay waa sidaan, meeshii 1ka ahayd waa tan x bay noqotay, costi waxaa ku dhacay tan x, 2dina tan x baa ku dhacday. kadib waxaan ogahay tan x cos x waxay noqonaysaa sin x sababtoo ah tan x waxaa loo qori karaa sin of a cos, costa hoose costaas la bixi doona, marka tan x cos x waxaa kasoo xasilaya sin x oo sin square x of 2 waxay ku noqonaysaa sidaan tan x minus sin x loo qaybsho 2 tan x. waana sidii aan raadinaynay oo aan doonaynay inaan soo saarno. leftigaan wadi right baan soo saaray, kadib labadan waa isku mid identity weeyihiin. qaybta c ee su-aasha ayaa waxay u qoran sida tan 2 loo qaybshay 1 plus cos x minus tan square x of 2 equal 1. waxaan rabaa dhinaca lefti markaan ka shaqeeyo inuu dhinaca right 1 soo baxayo. halkan waa tan half angle, marka tan half angle waxay mid kamid ah formulooyinkeeda wuxuu ahaa plus or minus square root of 1 minus cos x loo qaybshay 1 plus cos x. haddii laakiin square yimaado rootkii baa baxaya oo waxay ku noqonaysaa sidaan, halkii tan square x of 2 meeshay ku qoreed waxaan ku bedeshay formuladeedii intaan ah. kadib waxaan u baahnaa fractionkan hoosiisa isku midka yahay 1 plus cos x iyo 1 plus cos x in hal xaba ka qaato korna aan kala jaro. very careful, markii aad kala jaraydid minuskan qaybtan uu ku dhacaya halkan minus 1 bay noqonaysaa, halkan plus cos bay noqee, hadhowto 2 iyo 1 kala jarmaaya. dabcan cos x na way kuu joogaydaa insha allahu, marka waxaa kuu soo baxaya sidaan hoose hal xabaan ka qaatay korna waan kala jaray, 2 baan eri laga jaray, qaybtana ka jartay ku dhacday waa minus 1 plus cos x. kadib waxaa dhacaysaa laba laga jaray hal, dabcan waa iska hal, halkan waxaa kasoo baxaya 1 plus cos x kasoo baxaysa. very good, koreeyaha laba shay isku mid isu qaybida 1 way yihiin. 1 plus cos x loo qaybshay 1 plus cos x kale waa 1 un, wax isku mid isu qaybinaysa, marka 1 1 uu la mid yahay, laba dhinac waa isku mid. very good, dhinaca leftiga baan qabsaday ka shaqeeyay, kadib 1 aan soo saaray right ku qoran identity way yihiin. qaybta c ee su-aashana waxay u qoran tahay 1 minus tan square theta of 2 equal to cos theta loo qaybshay 1 plus cos theta. iyana waxaan u baahanahay inaan dhinaca leftiga wada ee right-ka aan soo saaro isku dayo. marka tan theta of 2 dabcan waa half angle waxay ku ahaa jirtay og tahay formulaheedii isla formulaha noocaana weeyaan, kan kaliya meesha uun x heedan baa theta aad ka dhigaysaa. ilaa waxaad soo bedeshay tan square x of 2 aad soo bedeshay, haddana waxaad bedeli kartaa tan square theta of 2, kaliya variable-kii angle-ka isbedelay oo meesha ka saa theta ah. sidaan igu qor waa kan tan square theta of 2 aan bedelay oo sida aan ka dhigay. kadib 1kan si aan fraction 1ka hooseeyay dabcan hadda hal weeyaan, laakiin hooseeyahana waa 1 plus cos, marka 1 waxaa loo qori karaa wax kastoo isku mid ah oo isu qaybido waxaa soo baxaya dabcan 1 hadday divided yihiin, wax divided oo jari kale yihiin. marka 1 waxaan qori karayaa 1 plus cos x loo cos theta loo qaybshay 1 plus cos theta, 1 plus cos theta loo qaybshay 1 kan bedelayaa bis oo waxaan ka dhigay 1 plus cos theta loo qaybshay 1 plus cos theta. dabcan hadda labadan isu qaybida 1 way yihiin, hooseena isku mid wuu yahay, marka 1 kan baan bedelay. hoose hal xaba ka qaado korna kala jar, markaad kala jar leedahay kor minuskan qaybtan ku dhici doonaa waxay noqon doontaa minus 1 plus cos, hadhowto 1 iyo minus 1 isla bixi doona. cos theta iyo cos theta isku darsoomi doona, hoose hal xabaad ka qaadatay. jawaabta aad doonaysa ayaa soo baxday. aad baa u mahadsantihiin jimco wanaagsan saaxiibayaal. jawaabo dhammaystiran oo layliyada xisaabta iyo physics-ka si aa u hesho fadlan ku soo biir ama ku soo biiri groupkayaga facebookga cmj some teacher
waa group Facebook oo aad ka heli karto layliyada maadooyinka xisaabta iyo physics-ka class form 4 iyo form 3 fadlan ku soo biir ama ku soo biiri adigoo raacaya linkiga la socda muuqaalka